dadka Soomaaliyeed ee waqooyigu اعترافku idinkama jiro Netanyahu wuxuu idinka jiraa dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ee dadnimo diin iyo dawladnimada aad wadaagtaan waxaan markale cadeynayaa in jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay tahay dal xor ah mid ah dhulkiisa aan lagu kala goyn karin warqad ay Israa'iil qortay ama saxiixay Netanyahu oo isagaba eedeysana caalamka ka ah ujeedada aqoonsi ku sheegaas ma aha danta dadkeena ku nool deegaanadaas ee waa danta Israa'iil oo raadinaysa dhul ay isku ballaariso oo ay si sharci darro ah ugu soo rarto shacabka reer Falastiin ee dhulkooda ay boobtay kana dhisto saldhigyo military oo qalqal geliya amniga gobolka geeska Afrika gacanka cadmeed badda cas iyo guud ahaan bariga dhexe walaalayaal arrinkan wuxuu raad aan fiicnayn ku yeelan doonaa dhaqaalaha horumarka iyo deganaanshiyaha siyaasadeed ee dalkeena haddii si xigmadi ku jirto aanan u maareynin